أبالمدن إيدي سيامدن hortaya abaal mudan eedayn saya mudan hortaya dadowya abaal mudan eedayn saya mudan waa arrin la yaab lehe dadowya abaal mudan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمد الصومالية الشيخ نور إيوه عمر الشيخ إيوه أحمد يوسف بشارة جمعالي عنب أدو صادق أحمد حسن إبراهيم ماجد عبد الرزاق حسن بوربرغ العس لما انتي بقاد من ورايا الدين سلامية كلمة حاجة إيو أسد إيو لقوا ويني إيو بساك إيو ننكر رزاق إيو حسن إبراهيم لما أنتي بي أحمد شري كل جين ولا عرب عدو كل جين أدبر دي سلامية وعندنا يا عاوة إن شاء الله تعالى سيد ولا يا دوش وكارتين أحمد جدي أدبر ولا سلامية دوش صوت كارتين با عاوة عندنا يا أنا جو عدالة أنا جو رح لحالة أنا جو أنا كتجين ربك عبسده حدنا أنا كتجن حقيقة إن أنا محكمة نقض أنا أبارو سيدا لكن كوبي إيهاي وحي رسمي إيغا بيغان تاي أنا قو كاشرية أغون تيدا دأذيدا يدرعي إلهي يسمي سلام سر ولا نصر الدين أنا يا عاوة سيدا أدوشو كو أركتين وذا سؤال بيهاي فلا دقنك سياسده وكما أيها كمدا فلا دقنك سياسده وكما ودقدق أني هذا إن عبد شكور فلا دقنك سياسده إنك بدأ ومد الصوماليين أنت إيمسدي ولد دوني إنه السياسة كهالله يا هذا مال السوتة ياسمين ولا بورد أدم كل سلامية وعن رنكرا وفلا دقنك سياسده ninka inta dalkii aynu lahayn bada عبد الرزاق محمد كويرة أدبن نذر كو سلامية سلوه هلي وعندنا يا عاوة إن النطر مامو تسوى سؤالوي فلا دقن كسياسة وكما واسكفوا ضدهاي ونكي انت الدل إن عبد شكور إيو إن عبد الرشيد ضدك انت ضد بدود يبسدين وضن دم دبتنا أصوى فردية إن أي siyaasadda ku sii jiraan dad waalan xaqi yey la hadlayay wax ka soo doonay waxaan isleeyahay dad waalan bay wax ka soo doonay laakiin intayna caafimaadka qabta ka badan nabar iyo naxdin haday waalan yihiin nabad iyo nololba dalkan u fayo macnaheedu maaha haddii dalkan ay nabar iyo naxdin ka dhasheen inuu baaciya inuu wada doqon yahay inuu waalan yahay maaha macnaheedu maxamed askar وعيري فردكن وفنانك هيرشبيل بوسوقر وحنا سلاي هاي مايا سحمها فنانين ugu badan ee ugu mucjisaysan waa gobolka ka yimaadeen هيرشبيل جوهر iyo Beledweyne waa fanaaniinta ugu qiimaha badan fanaaniinta meesha ka yimaadeen qaasatan la xamiistayaasha ugu shidan waa meesha ka yimaadeen sida Daawud Cali Masxaf sida muxuu ahaa Goobe sida ninka la yiraahdo dilay ku roon yahay نكل يعني سيد نكل يلادو ملحمك وطنك صوماليا إبا صومر يقول ملحم سنة ونكل يلادو جانجو يديك فراس قلبه أحمد نور جانجو
ninkii laxamka ka dhigay awrka doobadiisa markii uu xasan ganay yiri kasanqariyay doobtii waa doobadii awrka marka waxaa leeyahay faladeganka waaweyn bay leeyihiin faladeganka waaweyn bay leeyihiin fanaaniin mucjizahay leeyihiin soomaaliduna siyaasiyiin cabdishakuur ka weyn bay leeyihiin noo sheer gareeya si aynu barnaamijka wada dhigno caawa waxaan rabaan karata inaan ka sheekeeyo lacag imaaraadka ka timi oo uu soo qaaday dhinac cabdirashiid laba nin oo u shaqaysa oo ninka la yihahdo cabdishakuur iyo fiqi kadabshiir oo ku meereysanaysa dadkii facebookyada ku jiri jiray ee nabad iyo nolol loo adeegsanayo maadaama ay aaminsan yihiin in dowladda soomaaliyeed ay lacag ku bixiso dadka iskaa wax u qabso dowladdeedu ku taageera ee aan anigu ka mid ah taas oo anigu aan isku dayay kuwaas waa ceelbuur cali baba kuwaas waa ceelbuur hanuuniye iyo fiska iyo kaba yare iyo waa ceelbuur iyo xamar ka soo qaad daynile iyo xamar ka soo qaad ama hordhiile iyo xamar iyo meesha la yihahdo muxuu ahaa ceelbuur waaya waxaan leeyahay marka wow war dhinac usaan ujeeda waxaan ujeeda kaleeto hashim aad baa walal ku salaamaya sow dhammaantiinba iyo canab cabdow iyo waxaa jira marka lacagtaas oo soo baxday waxaa lagu kala iibsanayaa waxaa dhexda lagula meereysanayaa waxay aaminsan yihiin in facebookyada ay lacag ku bixiso dowladdu ayaga naftirkooda aaminsan keliya maahan waxa ay sheegaan in cabdishakuur iyo fiqi kadabshiir iyo waxaana ay sheegaan oo macnaheedii maaha in ay yihiin inay ka yihiin wixii lagu yaqiinayo ahaa munaafaqada keliya ma way aaminsan yihiin waxay sameeyeen marka imaaraadka lacag uu soo dhiibay dadka la rabo in dadka laysku diro dalkuna duun yaa loo soo dhiibay marka kuwa xunoo jeegaanta oo liita oo maanka iyo maskaxdiiba looga qafilay soomaalinimadu ma jirto magac soomaali la yihahdo ma jirin abtirsinya ma laha dalkan ingiriis baa idin siiyey kuwaana talyaani baa siiyey taariikhduna waa gebigeeduba talyaaniga ingiriiska intuu sheego taarikh ka horeysana soomaalidu ma lahayn mid ka dambeysana ma lahayn qam kuwo inta xishoodkii seegay inta ay beliliqo ku naaxeen iyo dalgad badgad diingad dumargad oo aan waxba ka xishoon iyo kuwo raacsan oo u ololeeya oo qabyaaladi ka buuxdo oo madaxweyne yimaadeen ra-iisul wasaare yimaadaba qabyaalad keliya wax kale qofka waxay ku diidaanna ma hayaan waxay ku doonaanna ma hayaan waxay ku doonaan waa qabiil waxay ku diidaan waa qabiil waxay ku doonaan waa qabiil dal kama fekeraan dalkuba wuxuu u yahay qabiil iyo qof gebigiisa gebigooda anigay su-aasha ay weydiiyaan daar socdaalow khayr hadduu tago maxaad oranaysaa ma ka haraysaa waxa weeye dhinaca siyaas aqoontina waa jaahiliin dad jaahiliin waxa weye khayrna waa nin ana nin baana qabiil iyo abtirsinya waa wada galaa laakiin mudnaanta koowaad waa dalkayga khayrna dalka iskama aha dalkan khayrin lama yihahdo dalkaa la yihahdo soomaaliya laakiin garashadii baa intaas haddii uu khayrna meesha ka tago nin kala yimaado macnaheedu waxay ii tahay siduu wuxuu la yimaado hadduu dalgad badgad diingad dumargad noqdo waan diidaya wax aqoon u leh ma aha mar haddii khayrra baxo in aan sii wado anigoo asturaya markii khayrra joogay ayaan dowladda soomaaliya taageeri jiray ama aan qaranka taageeray khayrre wax muuqduu keenay wax muuqdo qofku hadduu keeno oo uu xabsiya iiga soo daayo maxaabiista oo uu dhulkayga meelo kamid a xoreeyo oo hawada ah oo ay dhacdo in uu yidhaahdo war anagu adduunyada dhexdhexaad baynu karana nalama laha addoonna cidna uma ihin imaaraadka aan gagaflahaa iyo sacuudigii intaasoo kale markuu la yimaado ninka waa taageeraya laakiin haddii uu dhuro uu yidhaahdo labax qaado daf waa ii bililiqana anigu taageeri maayo iyo dhaqanxun waa warkaygu waa cadi waxaan doonayaa horta dad waxaa jira magacyada dadkana magacaadooda caadiga ha wadan aan haddana ra'yiga keenin oo iska tiraynaa sababta oo ah waxa weeye wax dhan loo raaca male sida hadda mulda diroyaman mise nafin
we don't know what is that afu ya man naqaan block iska blogarayna ka sababtoo ah magac lagu raacana ma wato wana aflaga doonaya wax uu aflaga doonaya inuu waxa weeye oo magaca beenta molded kaliya waa inuu Facebook inta soo gal dadka caawiyo waxaan rabaa marka taa fara degan ka oo inuu sheegnayo waa in Cabdishakuur dal uu badiisii gatay buu siyaasad ka soo doonay wuxuu ku hadlayna waad aragtay ilma basbaas daba iska maris baa kamid ah anigu ma keenin kelmadaas ee ragga iyaga leeyihiin iyaga yiri basbaaskan daba iska marinaysan farmaajo qeyr oo raacdaysan amal salibaan walaal aad baan kaaga mahad celinayaa dhiirigelinta waxaan idin sheegayaa markaa lacagtii noocaas ahayd ee imaaraadka uu soo dhiibay waxaa lala soo galay dhalintii facebookyada ka hadli jirtay ee Soomaaliyeed ee nabad iyo nolol ku abtirsanaysa waa kala hufkii iyo kala haadintii ee qaar baa raacay oo la iibsaday nin la yiraahdo eegay sida dameeraha awal buu ciid jiran aqli noola iman jirin oo eegay sida dameeraha ciid jiray oo gaaban oo dhaqan xumo iyo isku dir iyo falfal xumo looga soo eriyay isu tagii qiimaha lahaa ee magacooda la oran jiray midnimo qaran JJ Jamiila Jaamac aad baan ugu mahad celinayaa laqdabadii iyo xaaraaminimadii iyo tuugadii awalna xikmad meesha kuma haynin oo waa taqaanaano wax walba inaad warbal eegay wadaan ciyayo nin faragaa oo saas u gaaban oo saas soo yuurara oo dhuuxa khaa'inka ah oo aan ilaahay aqoon oo awalna aad farag aan muuqaal ahaan iyo qof ahaan awal dhamays ayno dhicisa nin la yiraahdo waxa ugu soo dhacay hadda koor nin baa baadiye degano dhicisa oo gaabano midkaan ay ka qabta moon dameer dhinaca kada labo muddo baalkii muxuu ahaa ishay on race dabagaale muddo kaasoo laakiin ma ahayn khaa'in ma ahayn kaasoo ma ahayn waxa la yiraahdo munaafiq ma ahayn kuwa la gatay kamid yahay marka eegay sida dameeraha kan u ciyaar eegay oo codka dameeraha wuxuu sameeyay ninka gaaban waxa la oran jiray Ahmed Aan baa la oran jiray Ahmed Kanini nin aad u yar u ahaayo aan dhamaysay inuu 6 bilood ku dhashay iyo 4 bilood iyo wax ku dhashay oo isagoo dhawayn ahayn fataqsay 6 bilood iga dhacay maalintii dambe waxa dhacay baadiyaha aqalka la dhex galo ee banaanka la seexda waxay la qoray afar cunugo oo naagta ka dhalay iyo isagiiba banaanka seexday roob baa daay roobka markii uu daay gabadhu waa kacday xaaskii waxay istiri war caruurta bal guriga ku xiray waa soo ordayo asagay daftir asagay weynaayo reerka aabahood hayay daf inta tiriyay inta qaaday guriga kula orday dhaxda markii la sii marayso naa ilmaha soo qado anigii asay intaas fiirsi tilmaadigiiba balaaya ku qaadee fataq inta loo ku siitay iga tag balaaya ku qaadee waxaan ku mooday ilmihii ku soo noqotay naa idhiga ilmaha soo qaado leeyahay moogta ya haddana anigu fataq baan horta siiyey haddii ilaahay ku reeya dhexdaan ku siisay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi cabdi xakiim wala eegay in badan buu wuxuu nagula soo dhex jiray munaafaqad iyo kala diris iyo laba isku diris uu kula dhex noolaa kula dhex jiray midnimo qaran anigu midnimo qaran kamid ma ahayn laakiin waxaan ahaa qof oo dadka ay taageersan yihiin dadka ay isku mabda yihiin yani bejka kama soo gajiray midnimo qaran waa wadana iyo nabad iyo nolol kulligeen laakiin bejka suuq waxaad ogtihiin inta jeer ee qarax ka dhacay
midnimo qaran ee laysku qabtay ee gabadhaa jamiile ah laysku qabsaday shaqsiga keenay ee dadka isku dirayay waa dameer kaaciyayay egey kule haddana la iibsaday ee maalin dhaweyd ra-iisul wasaaraha waddanka iyo madaxweynaha dalka waxaad ogeydin ku dhigay waxaa loo soo diray dadka nabad iyo nolol ah ee ugu xigmadda iyo awoodda badan ama aqoonta lagu tabay iyo waxgaradnimada ama magabadayaasha ah moon dameer baalkii onrays ama dabagaale wuxuu cabbaaray kow ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isaga oo leh xubinahaan marka kasoo qaato dowladda barkeeda wuxuu ku sheegay nabar iyo naxdin waxaana uu yidhi ra-iisul wasaaruhu cabdisalaam gentleman ninka la yiraahdo ayuu wuxuu ku yidhi ma midig baa tahay ma sabiix ilaahay baa idinku dhaarsheeyay bal u fiirsada waana noo munaafaqaynaya weliba oo wuxuu isku dayayaa in uu asturo onrays waa onrays ama dabagaale wuxuu isku dayayaa in uu weli nin dowladda taageersan iska dhigo laakiin munaafaqada noocaasi gormaynu ka nimi aad baan kuu salaamayaa ah cabdikariim iyo liibaan iyo gabadha la yidhaahdo yaasmiin kulligiin aad baan walaalayaa ladin salaamaya wuxuu markaa internetka nima gogo-aya laakiin waan sii wadaynaa insha allahu tacaala inta alla nagu dow waxaan markaa idiin sheegayaa walaalayaal madaxweynuhu buu yidhi ra-iisul wasaaruhu buu yidhi waa qabiili waad dhegaysan kartaan dib baad ugu noqon kartaan waa egey dameerka ciye dameerka egey layihahdo dameerka muunka dameer gaaban weeye wuxuuna wajahaa horta inta jeer ee burburku ku dhacay inta jeer ee khilaafku ku dhacay midnimo qaran inta jeer ee khilaaf ka dhex dhacay waad ogtay shaksiga ku dhex jiray ee dhibaateeyena waa isaga laakiin waa ilaahay mahadii maanta in laga tuuray oo uusan fooda soo gelin waxa la yidhahdo wuxuu kasoo hadlaa maxay ahayd boor weyne miyaa maqan cagaar weyne miyaa maqan waxaan arkayay isagoo aniga caayay maxaa la rabaa in ugu caayo wuxuu igu caayay waa da-weyn yahay bal u fiirsadaya waa da-weyn yahay naagahu caaya qabaa'ilku caaya saddexda qodoban kasoo qaadan kow su-aal baan weydiinaya ummadda soomaaliyeed horta yaa la caayaa yaa horta caaya waxa wey horta run sheeg ma ceeb sheeg baa ma qof baa la dhaliilaa ma gabar baa la dhaliilaa ma wiil baa la dhaliilaa ma qabiil baa la dhaliilaa oo qof lagama hadli karo personal attack lama samayn karo oo qof nin iyo naagto marka la yidhahdo dumarka lagama hadli karo ragga lagama hadli karo aniga waxaan leeyahay kow horta waa munaafiq horta waxaan ku faanaya internetka ku xun meel internetka ku fiican ayaan la tegayaa wax yar raalli ahaada waxaan u malaynayaa xaggan uu ku fiican yahay internetku shaka kuma jiro waxaan rabaa markaa soomaaliya waa ayo cidda dhaliisha mudane dhaliisha ma waxaa mudan rag ma waxaa mudan dumar ma waxaa mudan gabar ma waxaa mudan wiil ma waxaa mudan qabiil ma qof u khaasa oo dhaliisha waxaa jirta hadday dembi gasho aan laga hadlayn ama hadda waa hagaagsan hadda waa hagaagsan hadda waa okay weye madaka ee meesha xoogaa hooseysana anigu waxaan leeyahay marka war dhaliilay waxay qabataa ciddii geysataa hadday qabiil tahay isi seegi mayno ee ay nabar iyo naxdin tahay dhibaataynayso oo ay wax u dhimayso qarannimada soomaaliyeed
midnimada Soomaaliyeed diinta islaamka dhaqankeena iyo wixii lamid ah ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto ama qabiil ha noqoto ama qof ha noqotay warankaygu seegi maayo qof kasta oo ay qabato bal مثلا qabiilku haddii uu dambiilo wada noqdo uu isku raaco dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo xorriyadeena iyo dadnimadeena in ay beegsadaan iyagoo qabiil isku raacsan ma waxa la oranayaa qabiilka hal diisto maya kullay aniga xaggayga maya isaga qudhiisa daacad kama ahna waa ka munaafaqad simbati wuxuu ka samaysanayaa qabaa'il wuxuuna rabaa lacagtii baana soo gashay nabar iyo naxdin imaaraadka ka soo qaaday oo watuu ra'iisul wasaaraha ku caayayo uu leeyahay ra'iisul wasaare Cabdisalaam Gentleman wuxuu ku yiri ma bidaha tahay masamidik waa ba xasan cali qeer iyo qabiyaal waxa kale uu sheegay in lacag la siiyo dameerkan sheego dameer eegay ninkii wixii sida dameeraha xigmadiisuna eegay ismoodayna in uu wax yahay jaahil daba kafuul iyo caseeye iyo dilay guroyay iyo kuwii golayaasha mingiska joogi jiray jaama jooga loo oran jiray golayaasha mingiska wax ka timi jiray ya on raiskaas baan sheegayaa la iibsaday ee ataagaya dawladda iyo dadka nabad iyo nolol oo anigu aan kamid ah aqoonyahan da'weyn iyo daba kafuul dameer oo doorshaan oo ciiyo oo codka dameer la qiyaaq eegeyle baynu karanayo ma jeclayn in aan aado balse waxaan leeyahay war bishaare khaliifiyo gabadha la yiraahdo dilay ku roon yahay jamaahira jaamac iyo Cabdisalaam kelmadaas haduu Cabdisalaam Gentleman orolaha wallahi ana ka xumaadeen oo billah waayo Cabdisalaam Gentleman munaafiq ma waa ka qaldan karaan laakiin munaafiq ma anigu waan ogsoonay waxaan hadal dhinaca markaan uga soo jeedaa war eedaynta waxa xaq u leh oo anigu daahir socdaal hadaan da'deeda horta ku faanaya alxamdulillah nin weyn baan ahay amrigayga intii aan jirnaa barwaaqan ku soo dhameystay waa alla mahadi waxa aan ku soo koray iyo noloshayda da'da waxa laga shalayaa markii aad ku soo korto abaar iyo maxaa adduunkan ku keenay ee aad kori weydo على فيتامين الآن إيه على كالسيوم الآن إيه أد سكو قابتين عام هات إيه أد لفاها قوحي كوكوري الهايين آذن انتاد هلي ويدو الدنيا دا رفات كسو كورتا هورتا وحا ليلة دا أي هورتا دا لغش الله يا لكن الودا دي أد بنقو فرحسنا الحمد لله رب العالمين برواقا كسو كوري والحمد لله رب العالمين إنا إسلام سعودال إسلام أبتدون إسلام جيد مربع هذا ولا بين حارتي أباهي أحمر فرس كله سعودي لكن ماش باورتك وطا فرس تباور الناس كبير وعيد ولا بتقان لبدا إنه حرب فرداك ويجت ولا يغنى لبدا إن كليها فردين تاس كليان كل هرين شري بار كوغاري إن كستو ديان وشيغا ما من جسلا وشيغا دتك من جسك جامع جوجا من جسك دلي قرية جامع ولدي أدشو فردي شري إذا وكفول وضلعي إذا وانا غربو ها دول سكنتي قربها سكننا كاني وانا يا درب على انت امريكان جود نبر إيه نحدن بيعودي قفكي قلي إيه يبسمي وحان ليهاي ضمير لقطي وفاقلي وعودكيس ويهيجي إيه حكمتنا نقوما آذان سو كردين جرين نبر نقول دحيا الله دحي إلهي وانا كاساري هل كاقا فاقلي مسيمانين حكمتنا لغايري مايو waxaad ku doodayay oo wallahi qofkii dhageysta lacag baa dad la siiyaa waan u dhaartay wad maqlayseen oo clip baan soo galay waxaan ku wari war barnaamij baan soo duubay la yiraahdo war gobay ha gumoobin maxay baa intaas war gobay ha gumoobin
lacag layma siiyo oo wallaahiya oo billaahiya oo talaayo awlaad aan ilaahu dhig inaan shilin farmaajada iga soo gelin khayrna iga soo gelin hadalkiisu wuxuu ekaa markii hore daar su'aal lacag la siiyaa wallaahi baan laysiin oo billaahi laakiin xoogayga dadnimadayda sharaftayda qofnimadayda inta waxaan u horeeyaa nabadda iyo nolosha iyo qarannimada iyo jiritaanka iyo dowladnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed xataa haddaan u ciiboobay xataa haddaan u ciiboobay xataa haddaan u dhimanay waxaa ku soo haray ما لعقنا للسيو وزارة دي ورفافنتا أيو عيلة فورا فق نبري النحذين ونبري النحذين ما لعقنا ضدك السيان ما لعقنا السيان وريد محال لقا قطع فيري محاد براتي محاد تقانا محال لقا يبسدا مقاقة الدميرة لقا يبسدا ايجي ما انت سأل لقا يبسدا كيف تريسا ما انت سأل يبسدا لقا يبسدا وراد حمر دميرة هو كبوحان حمر الدميرة كبوحان وعدك غاغ ايجي عدير ايجي وحاول يبسدا وحاسو كلا دad kan iibsadaan dawladan nabadiyo nolol baa la inaan aqoon lahayn oo agtiisa shirin kama soo jiro qaaq wallahi way xoolo ku bixin wallahi oo billahi oo tallahi baadan shirin lagu helin qaaq iyo codka dameera anigu waan idin dhaartay in aanan shirin lacaga oo farmaajo leeyahay oo khayr leeyahay oo dawladdu leedahay in aanan waligay aragba igu wallahi oo billahi balse xoogayga yani dadnimadayda hatta sharaftayda haday gasho hatta naftayda haday gasho waan ku beerinayaa war waa loo dhintaa dalka war dalka waa loo mariyaa dhigtaa war waxaan waa dal dhan war waa dad dhan war waa diin dhan haddaan anigu haday waxaan noqonaysa Soomaaliya wallahi oo billahi oo tallahi aruurtayda waan ku bixin lahaa laakiin qofku markuusan dhuux lahayn markuusan dhaqan lahayn markuusan diin lahayn markuu daba ka fuul liito oo nacsa aha ee la buunbuuriyo la macneeyay awaaye laba shilin buu siisanay ilaahay baan idin ku dhaarshay war muxuu nagu soo kordhiyaa gaagay ya okay stupid waxaan leeyahay marka war anigu la tirsan maayo laakiin waxaan idin sheegayaa oo ujeedkayga dhini u yahay laba shay kow inay jiraan dad la iibsaday oo munaafiqiin oo nagu dhex jira nabar iyo naxdina oo iska dhigaya inay nabadna nool yihiin wallahi oo billahi oo tallahi inaan munaafiq oo nabadna nool lahayn diinta warablays qabaa'il buu ka sameysanayaa naagaha Soomaaliyeed ducay war naagaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ma mudna gabdhaha Soomaaliyeed anigu marka aan raada firi isku duwo horta ereygan isku duwo la yiraahdaa af Soomaaliga marka aan baro waxa qof soo fadhi xumada lagu yiraahdaa qof fadhi xumooday oo marada ka dhaxday ujeedka anigu aan ka leeyahay muxuu yahay hadeetana watan su'aasha idin weydiiyay walaalayaalow war xasan warunta walaal yay qabataa eedi war maragay qabataa oo dumaray qabataa oo qofay qabataa oo labay qabataa oo qabiil bay qabataa oo qaran bay qabataa mayo waa qofkii geesta gabdhaheenagu xoolama waa naflay cadaabtana waa la geenayaa jannadana waa la geenayaa sida ibn aadan dhaqan biiska noocan oo kale taa ee munaafiqa ma waxa doonaysa gabdhaha iyagu inaan suuqiyo taqlo in la simo gabadheena Soomaaliyeed ee sharafta leh ee qiimaha leh ee darajada leh ee loo heesay ee la yiri markii guudka loo dabo jirsadaan qangaar gayaankoodu soo baxo waa gaarin nolol wacan lagu soo gardaadsay gubsana ablahayo iyo gaar raacda dayaca ah ee dhaqaaqda ee dhaqan biista ah ee diin biis malada saan qaanad wada gelinaa ya fatal son of the bitch
علي مركا ورقبده إنجو ورقبده حماتاه ما أهان جبر الصوماليات ولا أسطورية ما ورمدين هني مدين في عني ما جيدو مد حن لقرب دوا ورقبده الصوماليات وجبر قيمة أوكلية ورقبد ناقته أنت هالك صوفر يستقبلها رقم بينه لنا نو لكن كان معيه قبلها إنه واحد رقم أوليين حشود قدرين هو ينمو وناك يرجع عن سوق اللي وعاين قبل أنت هالك صوفر يستطاع يدو قبيلة محاق قبل إيه قبيلة سكان قبلها إنه قبيل بملهبة واحد إنه وقف في عين رجع وقف في عينه واحد هاي وقبلها إنه قبيل بمله وهيكون قليين ويل كذا بيكون قليين وأنا كوفيهن وكوفيهن قبيلة قبل أنت هالك صوفر يستطيع من نبض إلى النور أولا ورنول ورنبض ورقرن وردل وردت له عيدي إلهي من كودر شيء ما قبر الصومالي هذا الله لسيني كراه قبله إن شرفته يدرجة قيمها وهدها ما يا والله منافق فتال باسمة سيد الدمير مون دمير إنجي كاسو كاسمة عنقول هي وعطاي دنيوس كا اسكو حابسده دنيوس كا با اسكو حابسده حماها iyo wanaag ninku marka oo san waxba ka naxin markuu danyuus yahay waa run isla simaya waa iskugu mid waa la gooynaya haddii aynan ka hor imanin teen xun ee dhaqanka iyo diinta waxba u diideen ee aynan dhihin naawad xun tahay soo ma aha tii fiicnaan la xumaato maadaama xumaanto aysan xumaan ahayn ee ay fiicnaantay xumuhu ay isku walihiin miyaanay ahayn in ay isku mid noqonayaan miyaanay ahayn waxa celinaya gabdhaha iyaga in ay wixii ceebana ayo arkaan wixii xunna ceebo arkaan waxa fiicanna wanaag arkaan miyaanay ahayn miyay tahay in cadaaladda laga tago oo teeda dhaqan biista ah ila way naga dhalatay ee naftirkeeda meesha ragga oo daar cali soo iyo dameer faaqle kanadan eegay ka dhasheen oo kaleeto war gabdhuhuna waa ka imanaya oo urhooyo waxan dadkaasi marka waxa aynu ilaahay baan ku dhaarshay markaynu xasan cali qeyr farmaajo wasiir bayli hadii iyo dadka lamidka iyo sayna abdullah xasan iyo hadii guray ahmed guray iyo markaan dameer faaqle engey balkaas xigmada mooday engey ana eegay mooday iyo daar cali soo markaan la sinno miyaynan cadaalad xumo geysan miyaynan away xumaanti wanaagii la argay xumaanti wana aslita eegay oo baba waa gola joog kuwii mingiska tumi jiray jaamac walidii la joogi jiray qurbana ay isku keentay munaafaqad biirsaday fataalnimo iyo la soo dhaxgalay midnimo qaran aqoon aysan jirin dabaka fuulaha dhuux iyo la fanaxun muuqaalkiisana aan bila dhamaysahayn oo aan oo aan laabtana ka wanaagsanayn muuqana ka wanaagsanayn baan leeyahay gef buuna u geystay dawladeena iyo shakhsiyaadkan waa kamid ma jeclayn inaan ku fogaado waayo isku mansabmiin isku aqoon miin waxaan leeyahay eegeeyo war qabiil walcay kara haddii uu noqdo qabiil xun oo qarannimada aan firi nin la yiraahdo hadda ka hor walaalka ayaan maadarnahay waxa la yiraahdaa magaciisa Cabdisaaq Kabeer ayaa naga leexday ayaa markuu maqnaabaan ka dabatay way gula jiraa hadda halkan gula jiraa waan arkay anigu qofna hada kala gabadho runtaana u sheega Cabdisaaq waa ka dabatay waxa Cabdisaaq walaal sayno kala qabatay tan maxay ku dhacday waraaw qaranka Soomaaliyeed wareer kama soo jeedid aragtay dad waxa isku daayay walaal macaano maxaa dhacay waxaad kaloo ogtihiin xasan macallin iyo nin Cabdiwali maxamed qanyare oo nabar iyo naxdin ah maalin walba anigu waxaan ninka u bareera ee yiraahdo war qaa'imiin baad in ummadda Soomaaliyeed ka fariista markaan ka daba tagay walaalkay ninka la yiraahdo
cabdisaaq kaba yare cabdisaaq waxaan ku cabdisaaq wasaa wuxuu dhahan hal kelimad buu ugu yidhi aada u qaali ah aan aada u soo dhaway wuxuu yidhi daahirow nin habaray dhashay buu yidhi nin habaray dhashay hal ma siiga waay aada bay qiime igu yeelatay kelimadaasi aada bay macno ulahayd wax qiimale bay ahayd yani waa qaldami karaa wey waxaan ku yidhi waa qaldantay soo maaha ka soo noqo nabar iyo naxdin iyo mala xun iyo dalburburis waayahay ninka raggaana taasaa lagu yaqaanaa qofkuna qabiil buu ka dhashay soomaalidu waa qabyaalade haddii qola xun haddii qof xun ay yimaado haddii ilma xaar ilma daba basbaas ka maris ay yimaadaan ilmihii ilaa anagu ma keenin kelmadda iyagaa keenay ee cid qabata la waaye ogaaso aanu ka daba hadlay ee aanu islaam ka daba hadlay ee aanu suldan ka daba hadlayn ee aan qof war walaalayaalow soo qabiilka islama qabo ha aan leeyahay markaa waan beegsanaya gabadha xun wiilka xun qabiilka xun qofka xun dhaqan baan leeyahay diin baan leeyahay waana sheegaya waxaan leeyahay war naclada allah kugu ridee naga joog bilaa dhiqanyo intaa markaan intaa ku daayo waxaan doonaya horta inaad dadka soo qabta haddii ilaha yidhaahdo markan waxaan leeyahay qofku hadduu shaqo doonayo waa inuu aqoonta lahaado dawladdana laguma dhaleecin karo baad maaha waxaad wax ku baadaysan waa xikmad la timaado laakiin qaaq iyo engey inaad la timaado sax maaha waxna laguma helo waddankanana waa tallaabay lacag kasta oo aad qof kasta oo baxa oo nabar iyo naxdin ay iibsadaan iyo mid kasta oo munaafaqa oo laba bogleeya intaba waynu ka adagnahay oo wallaahiya oo bilaahiya waxaana leeyahay eegeeyo raggu magaca guud iyo magta waa ka siman yahay raggu magaca guud iyo magta waa ka siman yahay 25 baa tahay oo wallaahi oo bilaahi inaadan konton gaarayn oo diino rabbul ciisa sababta oo ah sidii aan kula hadlay ee gobonimada ahayd ee aad tuhmadii aad u qaadatay inaan dawladda lacag ka qaato ee aan kugu dhaartay inaan ku yiri war reer haya anaan ku sheegin anaan meelna tilmaamin waxaa igu wallaahiya waxaa igu bilaahiya waxaa igu tallaahiya walaalaha shakisanow ee nabad iyo nololhow ee shakigu ku jiro inaan qaadan cid aniga villa Soomaaliya haddii wax laga qaatay yiraahdana haddii qabiil yiraahdo qod cid iga sokaysa ma jirto oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baan shil lacag oo farmaajo leeyahay khayr leeyahay ama dawladdu leedahay allow awlaad la'aan dhig inaan weligay arag aanan cunin ee gobey ha gumoobin intaasan garan weyday stabtii lagu yiqiina sida dameerkii muunka ahaa iyadoo dabagaalo lagu mado soo ciiday eegay oday weyno qabaylka caayo gabdhaha caayo agaag faaqa riyaa son of the bitch isku facnamihin isku dhaqanamihin munaafiq uray oo dhintay oo laga joogo waayay baa tahay oo nabad iyo nolol cid dambe oo ku dhageysanaysa ma jirto wareeyahay waranaga ku buunbuunay wallahi billahi tala dabagaale aan buunbuunay baa tahay dabagaale aan buunbuuninay baa tahay waxayaata rabbi man anta ya xumar min anta li xumar wama la akthar wax aad dheer tahay ma jirto dawladda aad baadi karto dad aad caayi karto baadi karto wallahi ma jirto maadigaas uun raiska ahaa dawlad baadi karaa warmaadigaas uun raiska ahaa la iman karaa haddii lay guree dabagaalaha iyo xikmadaada qaad eegey warma eeg war firi anigu waxaan soo kordhiyey hadda maalin dhaweyd 7 maalmood ka hor bay ahayd marka aan soo dhigay qalbi dhagax in la soo dayn doono dawladda Soomaaliyeed ay kala hadashay ninka la yiraahdo Abay Ahmed Cali anaa ku sheegay anaa soo sheegay oo waad ogey kadib 7 maalmood kadib baa la soo daayay adaa iga markaatay ummadda Soomaaliyeed iga markaatay sabab garan 7 maalmood kadibna waa tiin oo ilaahay inoo geeyay adna adugta
aqliga alla ka qaadiya aakhirana wax ka moogda adduunkana waxba uma aadan dhigan aqoonna ma lihido jaahilkaas atay jaama joog oo mingiska tumi jiray ku soo koray golaha mingiska waradaada aad sheegtay daad oo ku faraxsanayo inta barwaaqan ku soo jiray dugsi hoose dhexe sare jaamacad firi jaamacad anu Soomaaliya kama gelin laakiin dugsi hoose dhexe sare saddexdaas ku soo raacay halkan ku dhameystay aniga oo bartay political government wax ligaad aniga naftirkeyga shaqasan uga helay adigoo jaamacad joog ah oo mingis tumi jiray oo markii dambara daba ka fuul noqday iyo caseeyo ku soo koray oo aad ogtahay lafahaaga kori waayeen gaajo aawadeed oo sida gogofsan ba unuf leh war xageed ka kartaa balaya ku qaadee habarta harkacad ku dheer xageed ma baad ba wax maada wax baadi kara waska unuf leedahay nabad iyo nolol baad magac ku yeelatay annaga ku buunbuuninay mingis la yar baan annaga ka dhignay nabad iyo nolol ma aadan istaahilin waa arxanka iyo naxariistii baa keentay wana dhex kuftay munaafaqada bulshada kala dhex baax hunuf iyo dhintay oo angagufka dameerka kala dhex baax dadka munaafaqadada munaafiqiyo madax ra'iisul wasaaraheenu ma oran wax la yiraahdo bidix iyo midig miyaa tahay waana ninka Soomaalida aad arkayso oo wada jadbaysan tahay waxay ugu jadbaysatay wax qabadkiisii la arkay qabyaalad haduu wax ku soo daynayeen qabyaalad ba maxaabiista loo soo kala qaadi lahaa oo Itoobiya looga soo kala qaadi lahaa oo looga soo kala qaadi lahaa dilay ku reeyay nimankii toogashada ku xakunaayo joogay meesha la yiraahdo war wax loo reebtay oo munaafiq wax loo reebtaa wadameer quligay dameer munaafiqa maar asoo xigmadu wuxuu u qaatay dadka hadla dadka aftaanka ah dadka war xagooda aftaana ma dameero waa nagu badan yihiin war dameer xamaray buuxa war wallahi baan qaaq la iibsanay qaaq xigmada laga iibsado hadda la iman lahayd aqoon laga iibsado war waxba laga oran war waxa laga iibsado ma ba laga iibsado baan iibsanay yaa iibsanaya oo yaa baasor aqoontaaduna waa minka sida loo tumo oo aqoontaadu waa jaamacad joog iyo doonba marayso waa inta mingis sida loo tumo taqaana oo dawas aad baan isu naqaanaa iyadu xigmadaaduna horta aqoontaadu waa mingis sida loo tumo xigmadaaduna waa midda la yiraahdo lafahaga iyo dhumucdaada aad ugu hanjabaysaa huna waa tii aan hadda sheegayay wiilkii ninkii reer baadiyaha ahaa ee inta meesha baadiyaha asaga ilmihiisu seexdeen ee roobku yimi xaaskiisa inta soo toostay ee istir ilmaha ka xaray muxuu ahaa dilay ku roon yahay ilmaha ka xaray roobka ee isagii daftay ya dhic sidaada oo uu rayso kala taa dhaxda markuu la sii marayo gurigi aqalka yarta inay geliso ilmihii u malays anka markii la ordayo yiri naa idhig waa anigii naa waa aniga idhig ilmaha soo qaad si inta iska tuurto fatq si sitir iga tag balaayaha ku qaaday waxaan ku qabay ilmihii mid kamid aan ku qabay lafahaaguna waa noocaas waxaan la hadlayaa in la yiraahdo dameer waan la hadlayaa munaafiq masale xalaal aan soo fariisanay masale xalaal baynu ku soo fariisanay hada nolol baan adeesha Soomaaliya magacan halkan aad ku yeelatay jaahil murakkab ahaatay aqoon yahanada iyo wasiirada iyo dawladana qaaqadaada kala tag naclada ilaahay dusha kaga dhacday naclad baa tahay da'daydana anigu waa ku faraxsanahay barwaaqan ku soo koray maalin walba maalin raaxay ahayd nolosha inta igu dhib badnaydo waxay ahayd inta aan Yurub joogay iyadana maalinta soo gala sharciyeysay laakiin adiga nolosha ugu horeyday waa tan Yurub dad wanaaj qurbo ma adurso intaas waxa kugu soo haray xigmada dadku leeyahay ee labada erayood la soo cararaysay geerarka ee gabayga moodo iska dhaaf ama wax alifo ama dadka waxay dadka waxooda u dhig iska dhaaf xigmad ma waxa dadku kelmadaha geerarada la soo cararaysay adiga se waxaan ku leeyahay dhahdahlow dhawaaqaad itiri ma laha dhican imana dhibin oo aniga way dhurwaciyay dhidarkuba hadduu neef baktiyay dhaysta ka qaniyo dhan salaalaq waa lagu ogaa waana dhalankiisa adiguna dhigiisa ta waxa isma dhaantaan
ruuxa ma u dhameeyaa mase waa iska dhaafa talow waxa ma u dhameeyaa mise waa iska dhaafa dheeldheesha weyluuba wadhayda habartood dhaantada loo leey wallahi waa inta dharku joogay dhuxliyo munaafiqnimad meel dhararay dharbaaxan waryahay dhibso ha soo doonan gobta erayada yaro riwaayadaha ay ku jireen aanu naqinayo geerarada oo dadku leeyahay aad la soo carartana xigmadaad leedahay la kaalay qadana wax ku bedel engey wallahi baysan xigmad ahayn oo bilaahi oo tallaahi wuxuu yiri cali yare ka daabiyay aan ka daynayaa jaama joog yahow dib jirka ha soo doonan dadka gobta ah dawladda shacabka nabad iyo nolol waxaana ka xumahay in uu ku iibsaday ninkii isku dhiibay waa lay fuuray naclad allah ku riday ayuu liita 25 layho qiimaha ugu 25 inta kadib kugu si taraagtay ma engey halka engeyado cilmiga wada ka fuul iyo mingis xigmadaaduna oo engey idana ku nabad iyo nolol ku iibsan wallahi isan ku iibsanin oo billahi oo tallaahi baan dawladda kaaga furray eedeynta ka daa iska dhaaf waad u dhamaysay maryan way gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha leh waxay iga codsadeen in aan inta ku akay in aan intaas ku afdi waa adeer lagu nax laakiin waxaan leeyahay mingislow mingiskaagii ku noqo jaama jooggaagii iyo sacabayntaadii ku noqo iskana daa waxaad wallahi oo billahi oo tallaahi xaaraanta ay kugu iibsadeen waad u dhiman doontaa sharaf iyo munaafiqada nagala bax biskari munaafiqiyo annaga han sheeganin nabad iyo nolol wallahi oo billahi oo tallaahi baan farac ku leeyahay munaafiq baa tahay jamiil jj iyo waxaad isku diri jirtay wiilash waad ogtahay waa laga degi waay hadba midnimo qaran baad isku diraysay maantana umada Soomaaliya oo dhuudhuuma kartid xasan cali khayre iyo farmaajo iyo wasiirka warfaafinta iyo dhamaan umada Soomaaliyeed waxa aad ayda aad sheegaysayna wallahi inay waxba ka jirin been ala tahay dhuuntaas ku wada aqoonna uma haysid aqoon yeelo intaas in kala gudbaya son of the bitch umada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aad ka digtoonataan nabar iyo naxdinta idinkugu soo dhuumanaya nabadeena wallahi oo billahi oo tallaahi inaan been idin sheegaynin ee waxa socda lacag in Cabdirashiid iyo loo soo dhiibay faladegankii siyaasadda Cabdishakuur baa qaybinaya iyo fiqi iyo xalay wad maqlayseen meesha waa dhibaato weyn baa taagan ilaa futadii baa la dhiganaya waa idinka arkay ilaa futadii baa la dhiganaya dawladda gacantii la gaari waa oo muruq waxba looga qaadi waa oo af waxba looga qaadi waa futa lagu raadinaya maanta wad maqlayseen ilma bas daba iska maris waxa ay taageerayeen wad maqlayseen umada Soomaaliyeed waxay taageerayeen wiilka la walay cunay walay taabto walay booray laha wiilka la walay booray oo aad ogtiin waxa uu sheegay waad arkayseen ana waxa horta waxaan u bixiyay kufsadihii la kufsaday waad aragteen barmaray waanigi soo dhigay ninka ugu kufsiga badnaa ee gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta lahaa ee qiimaha lahaa mid walba meel ku kufsan jiray ee isbaaradu u tiilay xalay ilma basbaas ka daba maris basbaas daba iska maris oo wax alaala iyo waxay ka xishooda buuce wilwal aad baan ku salaamaya dhamaantood waxaan idin sheegayaa dad aan xishoon oo aan dhaqan lahayn oo 3,000 kumanaan sano aan ku haynay warwaha hawiye dada go'ku dada wariyaan leedin ku caay go'ay fardade xagga kabood weelka dardar cunuga maanta waa cilin weynay waa kuwa banaanka yaala wallahi billahi tallahi waynu hayn kari weynay ninka wuxuu yiri Muuse waa kaas warwalaalayaal Muuse waa kaas waxba ma hambeeyaan
dhaqan ma hambeeyaan diin ma hambeeyaan wadaniyad ma hambeeyaan wax walba kaga daranay waxay isku raacsan yihiin maxaa marka dhibaatada ay tahay xalay wiilka waxaa dabada marada maaragtay ii sheeg wiilka la magac baxay magacii ii sheegay xaarada ay baan u bixiyay xaarada ay taariya xalay fara dadkii naftii baa ka baxday si loo lahaa la baaro fara loogula jiro xaarada ay baan u bixiyay roob da ay ku yahay roob alla kuma siiyo oo xaarada ay saas u daayay oo aad maqlayseen ilma adeerayaal ilaahay baan hay midnimo waaye asagana walaalayaal heede mida Ethiopia anigu ugu tilmaamaya moogta war Ethiopia firiya oo leeyahay yani dawladii horta dawladda Soomaaliya waxaan sheegay dhamaantii ummadda Soomaaliyeed safiirka jamhuuriyadda safiirka Ethiopia oo fadhiya Soomaaliya ama safiir kasta oo dal u fariista dal kale wuxuu matalaa dalkiisa codka dalkiisa ayuu ku hadlaa safiirku safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Ethiopia wixii uu yiri dalka wuxuu ka dhigan yahay dalka Ethiopia ama dawladda Ethiopia waxay tiri si cad dawladda Ethiopia ay tiri waxaa naga codsaday qalbi dhagax soo deyntiisa dawladda Soomaaliya 7 maalmood ka hor inta la soo deyn baan idin sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka codsaday Abiy Ahmed Ali in qalbi dhagax soo deeyo waa mushina ninkaas oo mushina نار يان حدين بس دبا اسكا مريس المفاض ما هنقول فاتي معي هي لامباس عورو وان وحبا كحشون وادوكتين waxay yiraahdeen safiirka dhigta lagu raahdo war safiirku dalbu matala abaad baa yiri qalbi dhagax oo anigu aan qiimo badan ba igu fadhiyo dadka qiimeeya aniga waxba igu ma fadhiyo wallahi inuu san bi iyo taana igu fadhiyo wallahi billaah uba beentay maaha idaacadaha ku jirta safiirka Soomaaliya oo fadhiya safiirka Ethiopia ee Soomaaliya fadhiya ayaa sheegay in dawladdu ka codsatay in la soo daayo وقبصاصن دورات اللي يراد هادي اللي يراد waxaan idin sheegaya marka dawladda iyada cadaysay looguna noqon maayo qalbi dhagax wuxuu yiri aniga ninka la yiraahdo farmaajo iyo qeyrayga muxuu ka ogaan karaa xabsi buu ku xiraa waa nin xiran in la soo daayo ogaan kara qeyd allaale cid soo deeyay ma ogaan kara mise ninka la yiraahdo ilaahay baan idin ku dhashay aqla loo baahan mise Abiy Ahmed bay intii sarkeen buu ku yiri qof ibn aadan ah oo aniga iga ka codsatay ma jirto waa iska munaafaqadii iyo faqaya dhaqadii iyo wixii aynu tilmaami jiray iyo codkii ilma faadama hangool iyo balse waxa sayaab leh maxaa loo boonbooninayaa oo Sheekh Deeq looga hadli waayo xabad beerka laga dhacay oo aad ogtihiin lagu dilayo oo aan laftaday qiimo aniga oo laftan qiimo ilaahay waa qabiil halgamaya oo qabyaaladu halgamaya oo kaligooda oo Soomaalida galbeed ama WSLF xarantinimay maanta niman la yiraahdo dulmidiid oo adisawa isku Cabdi Ilay ka cararay oo meesha isku tagay oo le war meesha aynu eednayo waa halkaas Soomaali galbeed aan horta isku tagno Soomaaliyeena ka taganin Soomaalida aynu sameeyno Soomaali raadsan naam oo ninka la yiraahdo qalbi dhagaxna iyagu raacay wad de maqlaysay kaligay maaha wada maqlaysay warbaahinta la soo dhig Soomaali ha hungoobina shalay annaga hungoobnay annaga go'a saarnay gun aan sharaf lahayn dhaqan aan lahayn wiilashoodii inta maryaha ka furo futada dhigtay dheh nolol ku raadinaya futadan dhigtay ilaahay baan idin ku dhaarshay war goormaan dhaqankaas yeelan war yaa la abtirsinya war ilaahay baan idin ku dhaarshay mahawiya la abtirsinya war mahira baa la abtirsinya war ma ahl baynu noqon karaa war ma Soomaali baa la abtirsinya war ninka iyo xildhibaanadii xalay aan maqlay nimanka xildhibaan sheeganayay ee fiqi ka dabshiir lahaa ilaha ninka la yiraahdo lidin kaysa leeyahay mahad salaado aan isla tagaanin lahaa ilaahay baan idin ku dhaarshay ee wiilka waa la dhibay wiilka waa la booray wiilka saas la soo day waxa baynu wada dhaqanay mayo wallahi billahi wa tallaahi kumanaan kun oo sanana hawiyenimo iyo heraabnimo
iyo ku qarinaynay waynu qarin weynay war muuse waa kaas war haddii ku reexaar da-ayo waa kaas iyo ilmo haddii lay ku ron yahay fadama hangool waa kuwaas imaadeen reer tan kaleeto waxaa iga yaabiyey reer dhahaya galmudug afhayeenkeedu makaasuu ahaa wale galmudugey horaan allow gaalkacyoy maxaa geesi kaa yimi maxaa inan la guursado og ayaan la kaatin gaalkacyaa la yidhi cabdullaahi yuusuf maxamed faarax caydiid cabdi qaybdiid caydiid iyo cabdullaahi yuusuf iyo haddii lidinkeeda leeyahay waa caydiid iyo cabdi qaybdiid iyo cismaan caato iyo cabdullaahi yuusuf waa ka yimi ol magaaladu shidan aho ragsan aho alla u danisan aho daacadsan ayaa libaaxsan geesiyo maxaa geesi kaay alloo gaalkaciyay maxaa geesi kaayi waxaan anigu leeyahay marka gaalkacya laa ii dayo laakiin kollay raggaas xaggaas ay naga soo galay waxaan leeyahay waxaan aada u dhaliilayaa beenaalayaasha munaafaqada runta ka warwareega anigu se waxba gaalkacya magaalada am sorry magaalada waa ka xumahay laakiin dadkaas hadday ka yihin wari haddaan la isku dhaliilin waxa xuna ogawada oo wada xumaanaynaa gebigan wada xumaanaynaa haddii aan iskugu maradayno haddii aan isku xarig dheerayno oo waxa xun aynaan ka hortegin ogawa wada xumaanaynaa waa wada caadaysananaa waxa kuwa maaragtay waxaa la yidhaahdo waa runta saciid oo anigu waxaan kuu sheegayaa waxa xun haddaynaan diidin walaalayaal wallaahi oo billah haddaynaan isku dhaleecan haddaynan gabadheenna lunta ee gaala raacda ee dhaqanka ka tagta haddii aanan gabadheenna aan xishoon ee ragga cayda haddaynan gabadheenna sida xun u dhaqanta aynaan ka hortegin haddaynan ninkeenna xun aynaan oran waa nin xun haddaynan qabeelkeena liita ayna tanoo kale dhalaysaa in futada la dhigto dowladda futada marka gacan la gaari waayo oo af lala gaari waayo oo intaba ay adan iyo afba ku adkaatay in futada lagu meermeeriyey iyo waa lay booray in ay xigmadii iskugu tagta siyaasadeed ilma adeer halkaasaan tegaynaa marka waa inaynu waxa xun oo dhan dhaleecaynaa diidnaana waxaan soo dhaweynayaa marka waad soo dalban kartaan qofkii haddii ay ku soo dalbadana waan soo qabanaya insha allahu tacaala madon kusoo qabtay magna madon telefoonkaagu waa inuu sidaa ahaadaa maahan inuu taagay deersheer maxamuud السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك اخبارك؟ والله طيب والحمد لله احنا طيبين زيك انت. الحمد لله الله يسلمك. وين تعيش؟ وينك؟ في النرويج. ما شاء الله بس تتكلم عربي منيحة. اكيد وليش لا؟ قبل كذا كلمتك بس موضوع عن ربنا قلنا بعدين كدين نلوق كاسي يدقيسو. وعربا انا سؤالك ودي. تفضل. maxaad u aragtaa in la beegsado gabadheenna wiilkeenna odaygeenna qofka qabiilka iyo qabaa'ilka soomaalida qaladka u geysta ee dhaqanka tagga iyo diinka tagga la yimaada ma waxaad aaminsan tahay in ragga keliya la dhaleeceeyo ma waxaad aaminsan tahay in gabdhaha keliya la dhaleeceeyo ma waxaad aaminsan tahay in labadaba lagu dhaleeceeyo haddii qalad la yimaadaan iyo xumaan ma waxaad aaminsan tahay in aan qabiil la taaban laakiin personal attack qof in la abaaro maxaad ka aaminsan tahay yaa qofku marka wixii ciddii la timaado wax lagu dhaliilo yaad aaminsan tahay in la abaaro ayo بصراحة هرتا runta marka la sheego gabdhaha ka qayb qaadanaya in dalka afkooda ku dumiyaan dadka afkooda ku duminaya taageerayo oo
28 sano mashaakilka ku jirno arkaynin kuwaas in personal attack lagu sameeyo waa soo dhaweynaa noocay doonta ha noqoto gabadha isku dayda in wadankii qalalaaska laga wado iyo maxaan ku dhahaye 4 sac jijiidka wadanka laga wado madaxweynihii dowladda imaataba la dhaliilo la rido sumcad darrada iyo karaamad xumada aan ku qabno wadamada qurbaha iyo meel walba aan joogno nagu haysto gabdhaha raali ka ah oo idin aflagaadeeyo idinkoo u jahaadaya dalka iyo dadka waa inaad ku ataagtaan biayi dariiqa inaad qabataan oo aad caay iyo nooc walbaba u geysataan liano maxay dhahdaa carabta min sharfa nafsi huwa shariif iyada hadday iyada wadankeedii karaameen weysa iyadaba karaamamaba u taalabo laakiin in gabdhaha la aflagaadeynin oo la caaynin waxay wiilasha ku leeyihiin ana waa dhegaystay boodari hadalka uu ka hadlin waa dhegaystay adina waa ku dhegaystaa jamaacada aan markaan siixa waay dadkan ku siixdaatiin horta runta markaan idin sheego waana ka xumahay inaa isu marisiin hawada mashaakilaadka qaar waa ka xumahay dad meel kasoo wada jeedo oo wada jahaada ayaa aheedeen mawduuca waxaan dhihi lahaa gacmo geel jir hoosaa loo dhaqaa arrinka hoosaa loo dhaqo qofka khaldana nin inaag yaa loo fiirina anaga waxaa noo muhiimsan inuu dalkeena nabad noqdo oona laga wada qayb qaato naagta wasaqada ahna anakaaba karbaashina gabdhaha u joogna ragoo noo fariista idinka maasha allah tabaaraka allah aad bay walaashay u mahadsan tahay hal su-aalan kugu noqon aan rabaa inaan kugu noqdo iyo ahlo sahlan soo day fadal waxay tahay dadka qaarkii waad dhegaysatay anigu hebel dhihi maayo laakiin dadka qaarkii waxaad dhegaysatay nabad iyo nolol inay kamid ahaayeen sax sheeganaya haddana la yimid sheekada la yidhaahdo ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi cabdisalaam gentleman bidix iyo midigtee tahay ma bidix baa tahay mise midig oo qabyaalad ah ra-iisul wasaaraha waa nin norweji soomaali noloshka ah maba yaqaana bayaa tahay min weyn intay ka imaatay intay waxaas asay ku weyn tahay ra-iisul wasaaraha khudbadaha qiimaha lahoo uu aqriyey oo yiri kan ugu fiican wuxuu ku leeyahay war adin nin fiicanaa tahe yacni soomaalida noocaaga ma aha nin adagaa tahay waana run waa ereyada nagula dhaha norway iyo yurub markaan joogno adiga qof waxaa tahay isdadaalaya isdabaraya adakaysi leh khatar ah adiga dadkaaga noocaas ma aha carab iyo urub waa nagula weydiy waxaan dhihi jiray maxaa soomaalida kale maxaa ku dhacaysaa anaaba tihiin marka dhaqankaaga la arko oo awoodaada la arko wax kale lagu jira marka ma u maleynayo ra-iisul wasaaraha inuu hadalkaas leeyahay waana ninku dayasho mudan waana nin madowga soomaaliya ku jirtay kasoo bixiyay kheyr alahaasi asiga kheyr qaban bixi baani iyo maxaa la dhahay farmaajo iyo ninkii la beyle saddexdaas qof wallahi markaan seexanayo waa u duceeyaa marka ma u maleynayo waxaas bidax iyo midig iyo kalaam faariq iyo sheeko raqiisa u aqaana لا يمكن يا حبيبتي لا يمكن مستحيل وكلام فارغ هو كلام فارغ الصعود هو حنون الجيل وهذا مغليسي موقف كاسان نبض إيه نروح شيء أنيقا ولا عايكلا شخصيا أنا أقول لك أنا وعن لا شرفتي ده فيها ليجية شرفتي ده قفني مدى ده حنتي ده حتى شرفتي ده وحن كل حين يا haddii ay ku badbaadayso Soomaaliya inaan sharafteedu u iibiyo inaan nafteedu iibiyo wallahi billaah hadday isqarxis noqon lahayd maanta Soomaaliya ay dawlad ku noqonayso wallahi billaah oo talaabo isku xariiq waa isu keen qarxin lahaa si aad u noolaataan أكيد رجع إلبت صديقه طلعكي أتوجده بحال هاي إسرائيل رجع أو بح إن الله طلع له أو لجو بدله عبد الله عيسى يمكن لا هاي إنه بح مركو إنه ضاف الربي ولا الدور جرتات كالير أنا شايف كان كل جيستي ورجع وديار قرنوا نفتوض أوكي تلياني مركا إنه كبحة نينا قصة قلب قات أصول بيستيولود دلي أدركم إيمان على كبين بين مركو وارون وتقولي ما لهيت وصح qof walba oo Soomaali in meesha si ka taagantay laakiin ibkan haysta waxay tahay fulaan garle han taaganahay anaga markaan waaqaca runta aan u soo sheegno socdaal ugaas slow qalad ka jiro waxa waay indhaha iska ma saarno bal ilaahan kugu dhaariye nin dhan waji cambuula leh inta soo fariistay dabadaa la iga sawir afka la iga sawir wajigaas noocaas هذا كورة مثل حجره ميل لا دهو حديدة مي مقله
ها سيفي عن عبد القادر xidayda gabdhaha ya وما يلنا له اللي يسعو okay dadaa jiro dadaa ma rabo inaan soo qaato laakiin dadka badan carabi mooda fahmayen dee waa iska joojinaa marka waxa waaye دكور waxaan ku qoslaa sawirka yani filmaanta iyo sheekooyinka gaaban oo laga soo sameeyey horta aad ugu faraxsanahay ugu bulsho caafimaad qabtaa jirto ugu soomaalida intooda badan 97% dowladda raaliya ka yihiin waayo maanta dhan social media ku jiray waxaan fiirinayay radda ficilka ay ka bixiyeenay mujtamaca soomaaliyeed على هذا الكلام وحالي خلال يعني 48 ساعة مدما 24 ساعة مدما أرين كم كان سوء ما قلنا إلا يحد وحيابها اللي يعني وحيابها اللي سميه أما شيكوين كجابان روايدها إكسميين ما أنتم نبرشنا ساسيتي إسكو كود الشيء كيسلين ويكون في علمك ذاتك ونقولهم ودالين ديار أمها فطال إسكسوري إيو بس باسا الإسمارية إيو وحاس وصور بعطي داقة ير هدي الوجه قال أركو غير إلما فطو بس باس إسكمرسا أو بحيسي فطو بس باس إسكمرسا دي داقة ير لقاتو أما دورا كوديرنا إرقاس نهايو أرتمي هو إيه يعني دي شيء هذيك أنا بقول شيء أمد الصوماليين أنا شيء ها والله وبالله والله يسوي ذي ما نعرف وهكسر توبة أو كإيمان دونا نمن كان in ay maalinta dambe inta maaskara wax u soo geliyaan oo ayaga naftirkooda isfuulaya in ay inta soo duubaan in ay si ay dowladda iyo dadka u dhaleeceeyaan sharafteena iyo dadnimadeena iyo qiimkeena iyo diinteena meel uga dhacaan in ay soo dhigaan baraha bulshada oo yiraahdaan dowladda yeeshay iyagoo sameynaya firi mishinkii wuu dhamaaday qalbi dhagax waa soo fiinkii waa gubtaha oo qalbi dhagax ee yaa cunay waxaad ogaataan ummadda Soomaaliyeed waxaad ogaataan abo daahiro wax yar hadii okay waxaad ogaataa dadkan aanay dhaqan lahayn nimankana inaanay diin lahayn nimankana inaanay sharaf lahayn absolutely ad iyo fiqi iyo wixii lamida iyo Bukhari TV-ga iska lahaa ee la yiraahdo ayb u joog ninka wax ka soo duubay oo billahi oo tallahi waxay keeni doonaan haddana mishinkana waa socday kii qalbi dhagax وصو إني آخر كيدور لسفوسين وسين أي تبع كبحيان أي إن الدنا صور دكان فيسبوك وايا واحد أدي منو مثلنا هو الشيء الوحيد الصومالي كعافمات قبطه وحيابها النوع عاس أول شيء دتك وايس ديلان والعرب يعجب قال إيه مسلم قفك وشيك الصوماليا واحد اللي قسمي ميل عيب بركي الصومالو إزدشا وايس بعضه وايس بوبتا وحوا وضع أنت حرب الأهل واجريا نبات بدو واجرتا لكن الشيء الوحيد وأنا الشيء قالوا للشاهدين وحواي والي خاوي ننا لخاوي نين خاونا ما خبنا قوم ولود ما خبنا حسبنا الله ونعم الوكيل وحنكحوا معي إذا ما ذينا حاسين أنت مقدشوا والله وانكو حماي عيد مداس وانكو حماي أديان أو حماي إنسان عدودي كرامدود اللي ديلو أيقو برناك التاجر أيقو نور رفاضاي أيقو رمضان كي عرت قرح عند عين أنت سمو حالو سمين رمضان كي محاول قرحي واي سيلو إيدي قرح لو سمي واي هذا وما أصبت ولا شيء أنت ضد بدنا ونسويان هذه قامودين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض يا نور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا الله معك سيفي عن كرباشك كوذا كواس إلا إيك توبت كينان وأنا معك إن شاء الله يلا مالك والله هذا علمك وصوبته يا وعاد سميسين وحان سواق بنتونا مردو أدي علي عندي ولقي انت نشري ادو سو جيغا وينا جبكي حلا دحاي iyo mid ku sii socda ولقي والله انا ارق iyo billahi landar waa ka dhacday waa socon kari weyday landar telefoon horta waa jiif jiif abaa u yaala soo socon oo yaadi oo saas yahay toosan yahay ma ku soo qaban karina yes chog abda uu karo
internetka korona wax dhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته libaaxyada sanadkan gurmadkii ugu horeeyay ee aan isleeyahay nabad iyo nolol markii aan la daalay waxaad aragtay meel walba wax soo dhiganaya ee markay afka la gaari waayaan waxaan maqli jiray yaxaasku markuu afka kula waayo dabada kulama waayo dabada wareejinaya maanta waxaan u malaynayaa ragga aan uga sigayo ee daalinaya in adiga yihiin aadna waan kuu soo dhawaynayaa abwaanka la dhahaa magaciisa magacii belada ahaa ee aan ceelbuur horta maanta ceelbuur aad soo xasuusay wax badan aad soo xasuusay dhulka dhaqanka iyo diinta iyo horta islaamow waxaan rabaa horta hamag waxaan kule horta nimankan anigu waxaan u baxshay hamag ayaad wadiinay lambar qaata waxa la yidhahan keenay in safka la gelsho oo la baro bulshada Soomaaliyeed inay lambar qaataan hadday siyaasadda tahay soo qabso horta ummadda Soomaaliyeed meel alaal meel joogtiinba waxaan idin leenahay soo dhawaada halkani waa raadiyo socdaal oo aniga Xasan Sharaf ama Sarqaf Shaxsade caawa aan online ka soo noqday waxaan idin leeyahay saaxiibayaal soo dhawaada meel alaal meel joogtiin halkani waa meeshii nabadiid ku dhinteen waxa la yiraahdaa qabuuraha nabadiidka meeshan waa qabuuraha nabadiidka qof nabadiidu kuma noolaado meeshan waa meesha xabadaha ugu kulul ever oo ku dhaca nabadiidka iyo dadka dawladda diidan xabadaha ay ku dhacaan way risaasta ugu adag iyo lahjada ugu adag halka looga rido way waa xafiiska looga duulan nabadiidka waa xafiiska ay ku dabar go'een nabadiidka iyo heer hamag lagu qabshaxsan waayo waa qabshaxsiga dhabta oo ugu kulul odagii qabshaxsi laga keeno laga koobiyey waa xafiiskiisa dadkaana waxaan idin leeyahay intii daahir nool yahay haddii la yidhaha daahir waa dhintay oo waa kaasaha meeshaasuu yaallaa waxay leeyihin waa nool yahay waa nugu siraa maruu noogu hugshay daahir ma dhiman waa beenay leeyihin wallaahi maqaarka daahir 50 sano nabadiidka waa lagu cabsi karaa odagaas aa ujeediin oo madaxa diiranu waa oday ummadda ilaahay anigu waxaan ku ducaystaa daahirhayga hor keenin oo cadowgayga ha ka dhigin waxaan ku faanaa cawada inaan nabad iyo nolol ahay oo aan daahir isku garab nahay cid walba oo soo weerarta iyo cid walba ilma jiniin oo odagaas madaxa diiranu waxaa la yiri libaax duqhu 5 weer ka roon waaye 10 weer waa ka rooya waxaan rabaa inaan anan qofna caayin ilmaha dhadhela oo odaga isku taagay adeeryaal daahir idinku fac maahan ninka weyn hadaad la kaftanto habartaa yaqiina ceeb badan baa kaaga imaan kartaan ku leeyahay nin habartaa ku da'ahay lama kaftame wiilka dhalow isgaabiyaan ku leeyahay anu ilmo uma jawaabo mana ku xaysiyayo nin aan sharci lahayn oo wadanka ku istareeso bilaa sharci inuu odan weyn oo professor oo qaran dhan hogaansho uu afka ku taagaa waa ceeb waxaan ku leeyahay adeer isgaabi faca waa nool yahay waa la joogaa waa la xisaabtama waa la qabshaxsan doonaa inuu caloosha madowlo isgaabi baan ku leeyahay odagaanu dadow lama taabtaan u yahay runtaan kuu sheegaynaa iskalastoona joogtaa ka tirna hal manaan joogaa leeso qari maayo waa ku dhageystaa xaaladahaadan la socdaa in maaragta garaabada lagu aruuriyaan la socdaa adeer rag wax walba ka suurtaabaanana anoo karle ka warjishaana la yidhaha dawlad baan nahay xilligaan ku jirnaa xilligeenaan qaadaynaa xilligaan ninkan lugna hor dhigtaa waa jabaa gabarteenna lama taabto adeer ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhawaada shakhsiyan barayfad haddaad noo weerarto waa naga war hele waanu ku ognahay sifigaan haynaa waxaad ahaa jirta mar rabo inaan kugu fogaado dagaalkaada uma soo xaydan oday weynaa ku karaameeyo kulaba hadlay inuu kula hadla ma ahayn haddaan ka soo gaaro caawa dhan isoo qaban ku hay inaad yastaan rabay islaw daahirow waa dhacday xabadii waa ku fakadeen xabad dambe uu cili bilaa caleeg ma astaahili wax la xabaday waa un rees waaye ma astaahilo qof karay anigu fiiri kuwa heer beeje iyo carab indha maraq iyo waxaasaan taliyaha nabad sugidda facebookaan la baxay cid imaa karta marabaraha bulshada amnigooda waa sugan yihiin gabar dhilla ayaga dhanaad ujeedo dadka aad amaanay waa dad jamaad jeesta soo tuur wallaahi jamaad jeestaa soo saartay daahir cali suugay waxaan ujeedo والله بالله جماعة رواية ميلا دي كرتا قبل كرلا نمي سو سارت إن المانتا أنا ولا شيء كيسرنا الله فالتنا وعب عب نقول تشيم أن يوم كله إسلا ودب دمه وجواب تان كلا وعن ربع متسا من اللي وده شيء كان عادي مركي كان عادي نسعى في كل عادي لما ويلو قريسة تأتي مدينة نن رحمر هي وحيدا وريا إلهي ما تقانا مركاسو إلهي واقعنا صادق ربوكي كلا وحيور مثل شاو حيور ما قان war ilaahay ma taqaanina ma aqaan maxaa ka wadaa leer ilaahay ma taqaanaa gule iigay u leeyro ilaahay waa aqaan dan raa hadda iigay u leeyro horta dadkaas waa dadka yar xamar ka carreeno ilaahay u inkireen ilaahay ma naqaan naga tagay dhan ayagoo iigay leeyin ilaahay ma aqaan dawra wallahi iigay leeyin
horta dadku waa dadkaas daahir oo aad rabtaa inaad la kaftantood ka dhammaato futa la soo sawiray maree 60kii aad dadka carray beerooda ku qabsanayna ilaahay ma naqaana naga tag hana wareerin oo dadaa meeshaasay nala gaarta mafahad midda kale waxaan leeyahay waxaa la yidhi meesha bahalkeedu dhinto bakaylaheeda burfuula islaawow dadkaan waa bakayle adeer inaad bakaylayaasha iyo un raasida annagu xayisiino facebookyada ku xayisiino maahan wallaahi bilaahi tallaahi jamaad jeestaa soo saarta dadka aad u jeeday ka daba dherishan codadkooda iyo say u tuugu jireen baan haaya baraha bulshada soo dhigaya waa u caga jugleeya waa libaaxad karan laa waa gabar 10 nin karoona wallaahi konton inay isugu tageen ayagoo weerara ase iyadoo gabaray keligeed ka soo hirtay annaga ku fiirsan jiray barukaadse marka niman gabaro ka adkaata haddii raggooda soo kacaan hadu ma lehe oday adeerkeeya wallahi islaaw hadda kore kaaga sheekeeya ummadda soomaaliya lama wadaago 10 nin oo heerbiij adeeryaashooda soo weeraray isagoo meel iska jiifa say u dilaayeen waa iska jiifa asna waa hurda ayaguna inay dilayaan u malaya daaway ku garaacayaan oo xagga intuu soo jeesto war iga dhaafa dheesh hurda iga cadde xal dhamaan dhafraayo warasay ka kala carareen horta annagu dadkaasaan kasoo jeednaa adeeryaalo waa lays yaqaanaa ummadda soomaaliyeed maahan inaan hadda isbaranno cunug adoogii ka weynna waa wacal daar islaam waa curadkiinni waa curadkii karanle waa nin ilaahay karaameeyey haddaad odooga ka daldasha caarkana habartaad ku daldale soomaalidu waxay horu ha ka jiidana odaga caarkaan idin leenahay waana la joogaa sagaara baa tihiin adeer dad xifaaltama maahin dadaan ku daysa karra maahid marka dhinaca qabiilka la aado okay halkaas haddaan uga baxo nabad iyo nolol waa tashatay haddaad khayre iyo farmaajo qabiil uga daba ordaysiin adeer qabiil ka gudbe khayre iyo farmaajo adeer cid walboo qabiil ku raadisa cirka intuu dhulku jiray u jira ma arkay qofkii soomaalinimo ku raadisa arki doonta qofkii soomaalinimo ku raadisa adeer waxay yihiin iyo dadnimadooda ogaa doonta ninkii jufo ugu dhowaanayow ama qabiil islaameed wuxuu xoganaya khayre farmaajo nacow khayre farmaajo qabiil uf bay dheheen 30 sano adinka idinka koobiyeen aad wax ku keeni weysaan heeradalow soo baxa heeradalow dagaalama 30 sano adeer inta laydin koobiyaa uf leedahay waa uraysiin waa laydinka tagay xukunkay bulshada u dhaweeyeen shacabka soomaaliyeed ay u dhawaadeen shacabkooday la saaxiibeen dowladihii dariskay la hadleen adduunkiiba oo dhanaa saas u kor hoganaya adduunkiibaa kala baryaya imaaraadka iyo etoobiya iyo maaragtay maraykan iyo ruush iyo ciraaq oo liidata cadayaal soomaaliya annaga shidaalkeena waa nagala qarxiya maraykan anaga daldashay wax bartay daba jilifsatun midinka helaynayo marayn adeer dadka halkaa maraya ilmo dhadhalaho indhabarra anigu waana sheega islaawow inaad ila socoto maaqaani jus camay dhaafeen farmaajoya khayre haddaad ila socotod barnaamijkayga maanta dhegeysaysay jus tabaaragay bilaabeen heer qayle quute waxay yaqaaniin siyaasad laysku dilo siyaasad laysku qarxiyo siyaasad qabiile siyaasad shacabka loo dhoweynaha amniga lagu sugaho masaakiinta lagu kaalmeeyo maxaabiista lagu soo dayaatim waa ka weyn tahay waa jus kalaa la galay adeer adeer juskan ma taqaaniin subacaan ma qaada kartiin aayadan qaala taqullaha in kuntum mu'miniina qaaluu nuriid haddii gaarto waa culumadaa gelaya dadka waaweynaa gelaa ma geli kartiin allahu akbarta ku subciya ilmo dhadhalo dugta looga tago waxaa tiin qur-aan barade allahu akbarta jooga albaqra haddii gaarto dadka qaada jiraa qaada aayadda ka leexda adeer dadka tusbaxa madaxa laga saari jiraa qaadaha ka leexdan idin leena islaawgaana ka daaya sokortaa ku kucinina waa libaax ma jabo ma yeelayo islaaw hurd ninku ma yeelayo laba jirow dadka inuu baarka ka raaco ku bilaabay asoo 9 idin seexamaa wallahi midkiinuu fuulaa ka leexda islaawgan yaa lagu soo degdegayn ilmaha heer xaar biijo heer xaar daay xaarkiinu haddo hamag baan idiin baxshay wadiyo weeraan ku daray weeriyo hamag my friend intaad socotiin ma lambar qaata wadankan horaan noo beleyseen horaan idinkaga nasa weyno heer heelaw soo baxa warajiga ilaaliyeen waa dhaciyey libaaxyada garanamayo meeshay wareede say wax yihiin bamugi wadi ummadda soomaaliyeed waxaan u malaynayaa wareede